أنا runtii loo sameeyay waxaana yaala malaayiin buug oo kala duwan afar buug ma moodaysaa orodiga iibtiro luqadda carabiga ma isku adigi luqadda carabiga ma adka runtii aad marka halkan waxaad ka arkaysaa sida dalkan loogu qadarinayo waxbarashada abta halkan maanta joognaa dhammaanba way ka duwan tahay meelihii aan booqanayay intii aan joogay dalka Sacuudi Arabiya runtii waa meel aad iyo aad u qurux badan si qurux badan baa loo nashqadeeyay sida loo dhisay runtii aad ay aniga ayuubani cajab gelisay waa maktabadda guud ee qaranka dalka Sacuudi Arabiya si qurux badan ay goobtan loo dhisay runtii qaybo fara badanna waa ay ka kooban tahay waxaan rabaa bal inaad la socotaan ilaa eegtaan qaybaha kala duwan ee maktabaddan ka kooban tahay maanta أصحابتا هلكن وقيبت كوباد المكتبة أما با لايبراري جودة دلك السعودية العربية كوجوين قرح بدنا يرونتي لو سمي وحنا يعلم ملايين بيوجو كلا دوان كواسي أو كلا بوجتي علم الساينسكا كوا إسلام كا يكون له كيدي تاريخ ظهره جودة هندنيدا رونتي لايبراري فربنا ما صار خينتي عن مرة يدريدا كاني وا the best one وكأبو قرح دبنا waxyaabaha kale ajiibkaan ku arkay maktabaddan ayaa asxaabta waxa ka mid ah runtii sidoo kale in yacni buug walba qayb loo nashqadeeyay isla markaasna si fudud aad u helayso buugaagta sayniska kuwa caafimaadka kuwa taariikhda islaamka iyagoo mid walba meesha loogu talagalay yaala ayaad imanaysaa waxyaabaha noocan oo kale waxyaabaha loogu talagalay in dal kasta uu horumar ballaaran ka sameeyo dalka Sacuudiga runtii librariyada iyo akhriska runtii waxa uu ka sameeyay horumar aad u ballaaran maadaama akhriska iyo librariyadu markasta ay bataan uu yaraanayo jahligu markasta uu jahligu yaraano waxa uu dalkaas gelaya ama bulshadaas ay noqonaysaa bulsho horumarsan isla markaasina ah kuwa aqoontooda aad u sareyso waxyaabaha kale oo cajiibka ku yahay librariga asxaabta waxa ka mid ah in uu furan yahay librarigani ardayda wax ku akhrisanaysa iyo sidoo kale dalxiisayaasha sida anigoo kale ah ama adigoo kale oo maran iman doona halkan buuggan haatan gacanteeda ku hayaan waxa uu ka mid yahay asxaabta malaayiinta buug ee yaala librarigan ama maktabaddan akhriska ugu weyn dalka Sacuudi Arabiya oo ku taala magaalada Riyadh waxyaabaha loogu talagalay buugaagtan malaayiinta ah ee halkan taala ayaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay sidii loogu dagaalami lahaa jahliga isla markaasina kor loogu qaadi lahaa aqoonta runtii maktabaddan waa maktabad si qurux badan ee loo nashqadeeyay asxaabta sidoo kale kuraasdan haatan fadhiisan doona ee ka dambaysa ayaa iyagana loogu talagalay ardayda iyo dadka kale soo booqanaya madxafkani in ay haddii ay beegmo iskaga fadhiistaan sidoo kalena ay yihiin goobaha ay wax ku akhrisan karaan halkan ayaad iska fadhiisanaysaa kadibna waxaad soo qaadanaysaa kitaabka buugga aad jeceshahay inaad akhrisato keliyata waad fadhiisanaysaa luqadda carabigana aad baan ugu fiicnaa berigii hore haatan se weli waan dadaale asxaab fara badan baa moodaysaa orodiga iibtiro luqadda carabiga ma isku adigi luqadda carabiga ma adka runtii aad ayaan u jeclahay waxaana ka mid tahay luqadaha aan ku hadlo balse weli waan baranayaa waata asxaabta iska hayaa waata asxaabta sidoo kale King Fahd National Library oo ah librariga guud ee dalka Sacuudi Arabiya oo ku yaala magaalada Riyadh ayaa ah mid la talaabsanaya tiknoolajiyada casriga ah sidoo wada arkaysaan halka waxa yaala horena aynu soo aragnay buugaagtii kala duwaneed halkan waxa yaala kombiyuutarro kala duwan oo runtii aad u fara badan kuwaas oo loogu talagalay marka aad buugaagtaada soo akhristo si fiican in wixii kale baaritaana ee macluumaad ah ee internetka uga baahatana aad halkan si lacag la'aan
u timaado waxyaabahaasoo dhan runtii waxaa loogu talagalay inay dhiirigeliyaan dhalinyarada akhristayaasha iyo cid kastoo halkan imanaysa kuwaasoo rabto inay kor u qaadaan cilmigooda ila soco waxyaabaha kale cajiibkan maktabaddan ku arkeen waxaa ka mid ah halkanaad iska imanaysaa akhriskaaga baad soo dhamaysanaysaa wax walba waad soo dhamaysanaysaa ama waxaad fadhiisanaysaa goobahaas iga dambeeya loogu talagalay nasashada amaba halkan ayaad iska imanaysaa adigoo ka qaadanaya koofigaaga iyo amaba shaaha ama wixii kale cabitaana aad hadda ba u baahan tahay adigu anigu koob shaah ayaan maanta u baahan maadaama kafeega iska da'ay maalmahan Hi. How much is 1 cup of tea? 3 riyal in Saudi riyals. halkii koob waxa weeye shaaha waxa weeye 3 lacagtoo dhigantaa Saudi riyal. koobka shaaha ay maktabadda dhexdeeda aad ka iibsanaysaa waxa weeye 3 shilin oo u dhigma lacagta Saudi riyalka 5 shilin man haatan u dhigi doonaa 3 shilin baa u noqon doona shaaha. It's 3 riyals, right? Yes, sir. Here's your change. Thank you so Korea. much. You're See you, welcome, bro. sir. Thank you, sir. The sky, we see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 waata asxaabta muuqaalkii maanta intaas ayaa nooga yahay channelkanaad ka daawanaysaan muuqaalkuna waa Ayuub Show waad hore ugala barateen muuqaalaydii xiise geliya kuwaasi oo ku saabsan dhalinyartii dadka Soomaaliyeed ee dadaalka sameeyey oo halkan ku soo bandhigno sheekooyinkooda xiisaha leh sidoo kalena aanu soo bandhigno hadba dalka aanu tagno waxyaabaha xiisaha leh ee aan ku aragnay library-gan aan haatan joogo ee maanta aan barnaamijka ka diyaarinay ayaa waxaa lagu magacaabaa King Fahad National Library waana library-ga guud ee dalka Saudi Arabia muhiimadda aan u nimi library-gan amaba maktabaddan akhriska ayaa waxay tahay in aan tusno asxaabteena iyo daawadayaasheena nagu xidhan in akhrisku yahay mid muhiim ah isla markaasina dalalka caalamku mid walbaaba uu u tartamayo sidii uu lacag fara badan ugu bixin lahaa inuu sameeyo maktabadaha noocan oo kale ah markastoo ay bataan maktabadaha noocan oo kale ah ee dalalku ay samaynayaanna waxa weeye waxa badanaya horumarka maktabaddani waa free wax lacagi ma jirto haddii aad tahay dalxiise waxaanay ku taallaa magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Saudi Arabia waxaan filayaa inay noqon doonto mid ka mid ah meelaha aad runtii aad ugu la yaabi doontid markaad timaado dalka Saudi Arabia ku xidhnow Ayuub Show lana soco muuqaal cusub sidoo kale fadlan subscribe YouTube channelkeena si aad u heshid muuqaalo kuwan ka xiiso badan light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes.